بسم الله الرحمن الرحيم عشان wuxuu ka hadlayaa IV injection techniques-ka ama waxa weeye qaabka loo sameeyo dureenka xididka oo loo soo intervenous ama IV intervenous ama IV qofka marka lagu durayo waxa laga duri karaa siyaabo kala duwan sida in dhiig lagu shubayo in dhiig laga qaadayo in daawo laga siinayo qofka marka laga qalasoo sameeyo IV-ga ama dureenka xididka waxa loo baahay qofka in la helo warqadda prescription-ka dhakhtarku soo qoray qalabyada loo baahan yahay marka IV-ga la durayo xakama surgical gloves-ki fargashigi alcohol swab-ki وحتى antiseptic disposable syringe oo nadiif ah oo haweyn nadiif ah tourniquet-ki gacanta lagu xidho lahaa injection-ka daawadii ama fiyaal ama ebola ama cotton iyo cotton-ki sidoo kale intaas qalabka marka soo diyaarsatid waxa loo baahan yahay raacid nursing process-ka waxa la yiraahdo ama shantii hab u shaqeynay kalkaaliya caafimaadku ina marka waad sameeysid xog baaris marka sameeysid cudur sheegis kadib balaanin aad soo qorshaysatid wixii aad u qaban lahayd kadib waa qorshe fulin sameeysaa implementation after implementation marka shaqada qabatid oo shaqo qorshe fulin aad sameeysid kadib waxa loo baahan yahay sameeysid waxa la yiraahdo evaluation ama qiimeyn sida daraasad assessment-ga marka sameeysid qalabka soo diyaarsatid waxa soo qaadaysaa daawadii bukaanka waxa loo yahay preparation of drug daawadii inaad diyaarsatid baa la rabaa daawadii waa labo mid waa liquid ama waa fiyaal waa dareere midna waa powder ama waa ebola oo xabudo tabadada waxay rabtaa in la soo qaso oo lagu soo qaso water for injection-ki ama biyo waxa weeye lagu qasayay daawada markaad isku qasiday biyo noqoto ay dareere ku noqotona inaad silingihi ku soo jeedid baa la rabaa silingaha marka daawada ku soo jeedid hadii liquid tahay dareere aad soo qasatay labadiiba inaad airka ka saartid baa la rabaa oo silingaha aad gargaraacdid sababtay airkaasi haduu dhiiga raaco wuxuu gaari karaa wadnaha wadnuhu inuu shaqadiisa joojiyo waxa weeye gaab yar oo golba dhici karta sida daraaddeed daawada marka diyaarsatid waa inaad daboolkeeda saartaa si waxa weeye aan irbada afkeeda aan waxyaabo microbial ah oo hawada la socda aysan u taaban qofkii bukaanka u imaanaysa bukaanka marka uu timaadid waxa la rabaa in consent-iga ama ogolaanshaha ka qaadatid ogolaanshaha si ay u hesho waxa u baahan tahay kow introduce yourself naftaada wana isaga warbixisa qofka isu sharxada waxa tahay shaqaale caafimaad baan hay nursing-kii baan hay kalkaaliye caafimaad kaan hay qofkii nafaqada nutrition-ka baan hay ama pharmacist-tii baan qofkii inaad isu sharxdid baa la rabaa shaqada labaadna waa explain your procedure shaqada u qabanayso oo sharaxda oo tiraahdo daawada tan IV-ga xididka laga qaadanayo wax ku soo qoray dhakhtar sida daraaddeed daawada dhakhtarku soo xididka ka siinaya diyaar ma tahay hadduu qofku yeelo consent-iga ogolaansho waa haysataa bukaanka waxa ku xidhaysaa qofkii gacantiisii xididka dooratay xaggiisa sare tourniquet marka ku xidhatid waxaad nadiifinaysaa xididka xaggiisii sare adigoo isticmaalaya alcohol-shi irbada waa soo qaadanaysaa irbada afkeeda waxa u jeedinaysaa kor waxa khasab irbada afkeeda kor u jeedisid waxa u qabsanaysaa xagal 25 ilaa 30 degree ah silinka u qabsanaysaa irbada gadaasheeda dambe haduu dhiig ku soo galo waxay ka turjumaysaa wuxuu kugu jira xididka hadii aad daawo siinayso waa ka furaysaa si tartiib ah qofkana waa wareysanaysaa maxaa dareemaysaa xaaladda caafimaadka waxa xasaasiyada uu dareemayo ama wax garaac wadna uu dareemayo hadii qofka waxa weeye aad siinaysi waxa la yiraahdo daawada dhiig ka qaada daawo siineen ee aad dhiig ka qaadanaysayna waxa weeye tourniquet-ka laga furo maayo sababta waxa weeye wadii tourniquet-ka laga furo wadnuhu wuxuu dareemayaa dhiig laga jiidanayo taasoo sababaysa garaac wadnaha oo bata oo qofku noqoto tachycardia ama high pulse rate sida daraaddeed hadii dhiig qofka laga qaadayo laga furo maayo tourniquet-ka hadii kale se oo daawo lagu shubayo waa laga furayaa si tartiibana oo lagu shubaysaa qofka markasta waad wareysanaysaa waxyaha muhiimka ah kamid ah IV-ga qofka intaan laga durin waa in ka hor iyo kadib calaamadaha nolosha la cabiro oo vital signs-ka khaasatan in la cabiro pulse rate-ka garaaca wadnaha iyo waxa weeye blood pressure-ka cadaadiska dhiigga ka hor intaan durin la sameyn marka durinka la sameeyay kadibna waa in waxa weeye vital signs-ka calaamadaha nolosha ay ugu muhiimsan yihiin cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha cabirtid qofkii markii daawada ku dhamaato waa inaad u saartaa cotton-ki alcohol-ka lahaa oo aad ugu qabatid waa inaad qofka ka ilaalisaa inuu sameeyo burburin sababta xididku wuxuu sameyn karaa rupture ama qarax uu sameyn karaa hadduu qarxona qofku wuxuu noqonayaa internal bleeding sida daraaddeed qofka waxa loo baahay inuu san burburin casharkan halkaas inoo jooga aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah